arkayna waxa dhimashaa waxa dhaawaca waxaan ti burbura mashaqada dhammaan labadii goboleedan ka soo jeednay awdal iyo salel ka dhacay waynu wada ognahay tuwaan isku warabayna maaha oo tu maalintii ay bilaabantay ilaa maanta raggu uu kabaha iska saarin habeenkina kabaha ku socdo inta hadda ka imaado halkan laba war saxaafadeed baa hortaya baxay maanta waxa noo yimid odayaal baa yimid halkan annaan war ku haynin laakiin soo jiiray ma garanaysaa inay balaayo wada waxaan lahay warta raggu maxay wadaan laakiin raggi wax ka soo baxay wax irag oran jiray waxay ergaj oran jirtay baa ka soo baxay markay xaaladda arkeen markaan wada hadalay kadib waxay ku dhawaaqeen wixii ku dhacay ku dhawaaqeen dhageysanayeen kadib waxa hadashay imka madaxtooyada madaxweynihii baa hadlay wuxuu ku hadlay waxaad dhegaysanayseen qodobkaan ku baaba'nay een ku burburnay een ku dhimannay mayna een ku dhimannay xeerkaa qasabka ee laynoo keenay buu ahaa ee dalkiisii laga keenay buu ahaa kii wakaayimka la joojay waynaga wada maqlaya waa la joojay waxay nooga dambeeyaan waxa weeye odayaasha aqoon-yahanka xildhibaanada culimada iyo in alla intii la halmaasha inaan shir iskugu nimaadno haddii la yidhaahdo inaan shir iskugu nimaadno ayaa noo taala waanu haleelinaanahay waxaan socdaa mawjad baana sidataa laakiin imika waanu haleelaynaa haddii hawshii la joojay waan haleelaynaayo maanta ballan baynu ka lahayn inaan nimaadno noomase suurto gelin oo wax culayska kalaa la fuulay culayskii maanta na fuulay wuxuu noqday culays keenay wanaag buu noqday odayaashu salaadiinta ergada ahayd ee tirada badnayd ee maanta inoo timiday waxa weeye qodobadii ay soo jeediyeen waan raacsannahay in waxaan la arko waan raacsannahay taa haddaan ka tago innaga maxay imika inoo yaal dhammaan ciidamada meel kasta oo degaankaynaa dee caasimadda tahay booraba iyo hadday tahay degmooyinka kale iyo tuulooyinka kaleba waxaanu leenahay hala naga saaro annagaa isku soo hadhayna haddaan tolka nahay hala naga saaro taana halkaasaan kaga tegi qodobkayga ugu dambeeya meel baan ku soconnay saylac baa la yidhaa waad ina gaadhsiin kari weydeen wixii hore dhammaade warka iminkaan tegaynaaye la sheegayaa dee dhimashaduna waa 12 dhaawacuna waa 70 dee intaasaaba 100 hay intaa ayaaba 100 dhow ayaa bahayd oo rag wax qaban kara ayay ahaayeen waxaan faraynaa dadka iyaga hadday dhagax sitaan hadday wadhaf sitaan hadday qori sitaan nin walba halkiisa ha ku noqdo halkaasaan ka daadahaynaynaa halkaasuu kulan dambe ka dhacayaa waxa weeye waxaad noo dirteen baan ku jirnaa waxaan ina amraynaa u dhaga nuglaada saqiir ilaa kabir iyo haweenba inuu nin walba halku joogay ku noqdo fadhiisto loo baydho taladii iyo umuurtii dambana loo baydho waa imikana waan bixi doonnaa waxaanu bari doonnaa dhulkaan mari doonnaa waxaan leenahay adeerayaal oo walaalayaal oo hooyooyin waxaa ina amraynaa inaad mid walba halkiisa ku noqdo xukuumaddana waxaan leenahay lagu joogsan waa qori lagu joogsan waa dhimasho lagu joogsan dhaawac waryaara warsaar ciidanka annaga nahalin uga jiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu